السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جانا الكمركة للسودة واضح أدي هذا ومهتسنتهين مقال كان وحن رباينا إن ذكوله وداقوه صاحب يال المدحوين ترامب oo si cad wadamada xulufadiisa ah oo diiday inay gacan ku siiyaan furitaanka marinka Hormuz u sheegay markan adinka ay idin taala shidaalkiina doonta oo marinka Hormuz ka soo qaata inaguna idinku caawinayno sida aad adinkuba u diideen inaad na caawisaan markii aan u baahnayn ayuu yiri madaxweyne Trump arrimahaas waa idinla wadaagaya iyo waliba isagoo sheegay in laga yaabo inuu soo gabagabeeyo dagaalka Mareykanku uu kula jiro Iran iyada oo aan la furin marinka Hormuzna waan idinla wadaagaya sidoo kale wasiirka gaashaandhigga ama dagaalka Pete Hegseth ee taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Dan Kane ayaa saaka shir jaraa'id qabtay saddex su'aalood ayaa la weydiiyay oo mid hore ay ahayd ujeedooyinka Mareykanka ma aysan kamid ahayn miya in marinka Hormuz ay furaan ciidamo lugta ah Mareykanku ma u dirayaa dalka Iran iyo dagaalkan goorma la soo gabagabeynaya haddaba saddexdaasi su'aalood oo kala duwan sidee wasiirka gaashaandhigga iyo waliba taliyaha guud ee ciidamada Mareykankuna ay uga jawaabeen sidoo kalena waan idinla wadaagay xabiyaal ciladii dhinaca codka waynu xalinay saaxiibkeen Hoso Bro ayaa naga caawiyay arrintaasi sida bartiisa YouTube-ka ee Hoso Bro ba uu shalay soo geliyay muuqaal uu ku sharaxayo halka dhibaatada ay ka haysatay YouTube-leyda Soomaalida oo anigu aan kamid ahay waa uga mahad celinaynaa qofkii Soomaaliya oo ciladaasi haysatana videogii ugu dambeeyay ee shalay Hoso Bro uu soo geliyay ha ka daawado YouTube-kiisa Hoso Bro si uu ciladaasi isaga xalliyo meel ayaa jirtay loo baahnaa in la iska xiro waan iska xiray waxaan filayaa hadda kadib codkii inuu noo wanaagsanaan doono haddii aan ku bilaabo waxaan ognahay dagaalka Mareykanku iyo Israa'iil ay kula jiraan Iran in hadda bil uu ka gudbay waxa uu marayaa bil iyo 3 maalmood sicirka shidaalkana cirkaasi ayuu isku sii shareerayaa $103 ilaa iyo $104 ayaa hadda halkii fuusta ay maraysaa waxaana leeyahay $117 ilaa $18 in uu gaaro ayaa laga yaabaa haddaba madaxweyne Trump oo maalmihii u dambeeyay hanjabaado kala duwan iyo muddooyin kala duwan dawladda Iran u qabanayay in marinka Hormuz ay furto hadii ay furi waysana uu burburinayo korontadooda biyahooda iyo dhamaanba waxyaabahooda asaasiga nolosha asaasiga u ah ayaa qoraalkan bartiisa True Social-ka maanta ku soo qoray wuxuu yiri dhamaanba wadamadaasi oo aan heli karin shidaalkii diyaaradaha marinka Hormuzna aan ka heli karin sida Ingiriiska ayuu carabaabay isla markaana diiday inay ku lug lahaadaan dagaalkan Iran waxaan idin soo jeedinayaa laba arrimood midda koobaad waxay tahay shidaalka horta anaga naga iibsada Mareykanka anagu kayd fara badan oo shidaal ah ayaan leenahay inaga naga iibsada ma wadiideen Soomahan midda labaadna waxa ay tahay ayuu leeyahay shidaal badan ayaan leenahay midda labaadna waxa ay tahay bal waxaad sameeysan geesinimadiina aad dib u dhigateen hadda la soo baxa oo shidaalka adinku soo qaato oo marinka Hormuz shidaalka ka soo qaata waa inaad bilowdaan ayuu yiri inaad barataan sida nafsadiina aad ugu dagaalantaan Mareykanku ma idin caawin doono halkaasina ma joogi doono maxaa yeelay markii inagu aan idin baahnaynba waadna caawin wayseen Trump waa kii ka dalbaday isbahaysiga NATO in ay gacan ku siiyaan furitaanka marinka Hormuz la markaana yiraahdeen dagaalkani oo markii aad bilaabaysan aad nooma sheegin waa dagaalkan dagaalkaada ee adiga ha kugu ekaado marka odagii hadda caradii ayuu banaanka keenaya wuxuu leeyahay anagu shidaal marinka Hormuz uga ma baahnin sida darteed hadii adinku aad u baahan tihiin ama anaga naga iibsada shidaal fara badan ayaan haysanaa hadii kalena shidaalkii orda ka doonta marinka Hormuz maxaa yeelay geesinimadiina aad dib u dhigateen hadda la soo baxa maxaa yeelay markii aan idin baahnayn waa na caawin wayseen haddana anaga marka aad noo baahan tihiin idima caawinayna ayuu yiri wuxuu sheegay Iran in hadda dhulka lala sameeyo sida isagu uu sheegayo isla markaana shaqadii adkeed waan qabanay ayuu leeyahay hadda adinkuna baltiina qabsada anaga wuxuu leeyahay Iran waan burburinay sida isagu hadalku u dhigayo wala wali ay dagaalamayaan laakiin wuxuu leeyahay baltiini ayaa harsane bal adinkuna shaqadiina ka soo baxa sidaasi ayaa wadamadii xulufadiisa ninkii Trump ahaa uu ku leeyahay sidoo kale wararka kale hadda soo baxay waxa ay sheegayaan maadaama Trump uu dhahayo wada hadal ayaa noo socda Iran aysan jirin sida ay sheegayso wada hadallo toos ah oo dhaxmaraya Mareykanka iyo Iran waxa Trump hadda la taliyaashiisa uu u sheegay sida wargeyska Wall Street Journal uu qoray in uu doonayo Trump inuu dagaalka joojiyo iyadoo aan dib loo furin marinka Hormuz arrintaasi ayaa sidoo kale hadda soo baxaysa oo doonaya Mareykanku inuu gabi ahaanba dagaalkaasi soo gabagabeeyo marinka Hormuz oo xiran Iran hadda waxyaabaha wada hadalka ay qodobada ay soo bandhigayso waxa kamid ah in loo madax banaaneeyo marinka Hormuz waan aniga hore idin ku sheego xitaa waxay bilaabeen in maraakiibta qaarkood midkiiba lacag $2 milyan ay ka qaadaan marka Trump hadda waxa uu leeyahay sida muuqata
marinka Hormuz oo aan la furin ayaan doonaynaa dagaalkan inaan soo gabagabayno. Maraykanka hadda 50,000 oo ciidamaha ayaa bariga dhexe ka jooga. waxaa markii hore joogi jiray ilaa iyo 40,000 10,000 oo dheeraad ah ayaa lagu daray. arrintaasina waxaa muuqanaysay in laga cabsi qabo Maraykanku inuu doonayo ciidamo lugta ah inuu Iiraan geliyo. haddaba arrintaasi waxaa maanta si toos ah loo weydiiyey wasiirka gaashaandhigga ama dagaalka Pete Hegseth iyo taliyaha guud ee ciidamada Maraykanka Dan Kane oo saaka shir jaraa'id qabtay. ugu horreyn wasiirka gaashaandhigga Pete Hegseth waxaa la weydiiyey ujeedooyinka Maraykanka miyay ka mid ahayd in marinka Hormuz ay furaan. arrintaas waxa uga jawaabay waxa uu yiri bilowgii ujeedooyinkeena aniga madaxweynaha sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada Maraykanka madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kalena wasiirka arrimaha dibadda waa ay cadaayeen waxay ujeedooyinkeena ahaayeen ayuu yiri inaan burburino meelaha gantaalada ay ka soo saartaan warshadaha ay ku samaystaan Iiraan gantaalada ay hadda haystaan iyo sidoo kalena ciidamadooda badda ciidamadooda difaaca iyo sidoo kalena waxa uu sheegay in Iiraan mar kale aysan nuclear aysan yeelan laakiin waxa uu sheegay in marinka Hormuz anaga problemkeena ma ahna uu yiri marinkaasi Hormuz maxaa yeelay yiri madaxweyne Trump wuu isku dayay in wadamada xulufadiisa arrintaasi uu ku hogaamiyo laakiin waa ay ka soo horjeesteen marka waxa uu sheegay problemka marinka Hormuz anaga problemkeena ma ahan isla markaana sidoo kale marka madaxweynuhu uu hadlayo waxa loo baahnaa wadamadaasi inay dhageystaan maxaa yeelay markastoo hadlo madaxweynuhu wax sax ah ayuu sheegay yiri sida uu isagu hadalka u dhigay sidaas darteed waxa uu sheegay waa in hadalkii madaxweynaha ayuu soo qaatay wuxuu yiri waa in ay bilaabaan si isla markaana ay bartaan si ay nafsadooda ay ugu dagaalamaan arrintaasina wuxuu yiri in muddo ayaan ka hadlayn wuxuu yiri in aad calan leedahay ama ciidan aad leedahay macna ma sameynayso laakiin waxa sameynaya macna inaad isbedel sameyn karto arrintaasina wuxuu yiri waa midda in loo baahan yahay in ay sameeyaan wadamadaasi waxana uu sheegay hadda caalamkan lagu nool yahay waxa loo baahan yahay inaad awoodaada muujiso haddaba waa kan wasiirka gaashaandhigga Pete Hegseth oo arrintaasi ka jawaabayay in ujeedooyinka Maraykanka ay ahayd furitaanka marinka Hormuz. Well, first on the Strait of Hormuz, our core objectives from this podium, from day one, from me, from the chairman, from the president, from the vice president, from Secretary Rubio and others have been clear. Defense missile production and missile programs, so their entire missile program, defense industrial base and production ability to build, and Navy and power projection. The chairman's talking about our industrial base. That's why we're launching the Arsenal of Freedom tour to revive our defense industrial base. President Trump doing it in a way that nobody else has. sidoo kale waxaa la weydiiyey taageerayaal fara badan oo madaxweynaha jecel waxay ka walaacsan yihiin in ciidamo lugta ah Maraykanku uu u dirayo dalka Iiraan arrintaasi muxuu uga jawaabay waxa uu sidoo kale yiri in ciidamo loo diro wuxuu yiri dhulka ah wadanka Iiraan madaxweynaha ayay ka go'daa taageerayaashiisuna waxay tahay yiri inay ku kalsoonaadaan maxaa yeelay horay ayay u arkeen madaxweynuhu waxyaabaha uu qaban karo iyo waliba ajeediyaashiisa in nabad uu awood ku raadin karo waa sida hadalka uu dhigay laakiin waxa uu sheegay cadowgaada ma ahan inaad u sheegto inaad doonayso waxa aad sameynayso ama waxa aadan sameynaynin sidaas darteed wuxuu yiri Iiraan iyada xitaa waa og tahay inay jiraan 15 wado oo kala duwan isla markaana aan ku soo weerari karno arrintaasina waa ay ka warhayaan waxana uu yiri haddii loo baahdo waan sameyn karnaa laakiin waxa uu yiri inaan loo baahan ayaa macquul ah oo wada hadalka socdo uu guuleysto amaba ay soo baxaan wadooyin kale sidaas darteed waxa uu sheegay sidoo kale madaxweynuhu waxa uu kamid ahaa dadkii casharada ka bartay dagaaladii Ciraaq iyo Afghanistan sidaas darteed waxa uu sheegay in casharadaasi haddii dad fara badan ay si aad ah ay u darseen in muhiimadeedu ay tahay madaxweynuhu inuusan doonayn inuu soo celiyo arrintaasi oo kale marka waxa uu leeyahay arrintii ciidamada Maraykanka Ciraaq iyo Afghanistan ka qabsato kale madaxweynuhu ma doonayo in uu soo celiyo ugu dambeyntii marka waxaa la weydiiyay dagaalkan goorma ayuu Maraykanku soo gabagabeynaya wasiirka gaashaandhigga ee taliyaha guud ee ciidamada Maraykanka waxa uu sheegay sida hore su'aashii hore aan u sheegay uu yiri ma doonayno cadawgeena inaan u sheegno waxa aan doonayno inaan sameeyno ama waxa aan doonayno inaan sameeyno sidaas darteedna ma u doonayno inaan u sheegno xilliga dagaalkan aan joojinayno marka waxa uu yiri markastaba cadawgaada ma ahan inaad u sheegto waxa aad doonayso isla markaana waxa uu yiri ujeedooyinkeena wali ma aanan gaarin madaxweynaha ayuuna ka go'aanka ah dagaalkan xilliga la joojinayo isla markaana danta dadka Maraykanka ay ku jirto isla markaana waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay midda muhiimka ah oo la doonayo in la ogaado waxa uu yiri ujeedooyinkeena wali ma aanan gaarin sidoo kale waxa jira hadda website-kan dad Maraykan ayaa sameeyay waxa laga la socdaa lacagta ku baxaysa dagaalkan
sida halkan aad ka aragtaan hadda 36 trilyan ayay lacagtaasi ay kor u dhaaftay dagaalkan ku baxaysa halkii sakan waxa ku baxaya 11574 dollar halkii daqiiqana waxa ku baxaya 41,666,000 oo dollar ilaa sidoo kale 667 ayaa ku baxaysa halkii maalin waxa ku baxaysa 1 bilyan oo dollar website-kan ayayna dadka Mareykanku ay sameeyeen oo ay kala socdaan lacagtaasi ku baxaysa Mareykanka dagaalka uu kula jiro dalkaasi Iran oo hadda waxaan filayaa inuu maalintii 33aad uu marayo marka xaaladdu halkaas ay maraysaa Trump wuxuu leeyahay dagaalkan waan joojinaynaa iyadoo aan marinka Hormuz la furin wadamadiisa xulufadiisana waxa uu yiri anaga marinka Hormuz waxaan uga baahanahay mid jirto haddii aad shidaal uga baahan tihiin geesinimadeena muujiya ee halkaasi shidaalka ka soo wata amaba anaga naga gata anaga ayaa shidaal badan haysanay aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan markale kulmi doono nabadgelyo